محمود لحدن يتدوب شركة تاريخda cusub ka dhigay siyaasadda Soomaaliya wuxuu ku dhashay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan 29 November 1955 ka hor intii aanu siyaasadda ku soo biirin wuxuu ka shaqaynayay arrimaha waxbarashada isagoo xubin firfircoon ka ahaa ururadii bulshada rayidka xilli dalku uu ku jiray dagaal sokeeye iyo marxaladda adag siyaasadda wuxuu ka soo galay dhanka baarlamaanka isagoo xilkii ugu horeeyay ee uu qabto uu ahaa xildhibaan baarlamaan oo loo doortay bishii Agost sanadkii 2012 tobankii Sebtembar sanadkii 2012 waxaa loo doortay madaxweynaha Soomaaliya doorashadii ugu horeysay ee lagu qabto dalka gudihiisa tan iyo bilowgii dagaalada sokeeye waxa uu ka guuleystay madaxweynihii xilka hayay Shariif Sheekh Axmed dawladdaas oo madaxweynaha ka ah Xasan Sheekh waxa aad uga dhex muuqday saaxiibadiisa laakiin waxa lagu amaanay inuu ku dadaalay hirgelinta nidaamkii federaalka oo uu gacan ka geystay dhismaha maamul goboleedyada qaarkood iyo inuu qabtay doorashadii ugu horeysay ee ay ka qayb qaadanayaan ergooyin soo dooranaya xildhibaanada waxyaabaha kale ee ku suntan muddaxireedkiisii hore 2012 ilaa 2017 waxaa ka mid ahaa inuu soo magacaabay 3 ra'iisul wasaare iyadoo 2 ka mid ah oo kala ahaa Cabdi Faarax Shirdoon iyo Cabdiwali Sheekh Axmed ay iskhilaafeen xilalkoodina ay ku waayeen baarlamaanka oo codka kalsoonida u qaaday sanadkii 2013 Xasan Sheekh Maxamuud waxa magaciisa lagu daray liiska 100 qof ee ugu saameynta badan caalamka oo ah liis sanadkiiba hal mar ay soo saarto jariirada Time ee dalka Mareykanka ka soo baxda waxyaabaha ugu waaweyn ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdii madaxweynaha ka ahaa lagu xasuusto waxaa ka mid ahayd in dacwaddii muranka badda ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya uu u gudbiyay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ sanadkii 2015 dacwaddaas oo 12 Oktoobar sanadkii 2021 maxkamadda caalamiga ah ay ku dhawaaqday go'aan ay guusha ku siinayso dhanka Soomaaliya sanadkii 2017 bishii Febraayo doorasho aad loo filiyay inuu ku guuleysto Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa ka guuleystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna xalay uu kaga guuleystay madaxweynenimada Soomaaliya Xasan oo 2 xilka madaxweyne xaqiiqsaday waxaa ku xeeran xaqiiqooyin adag oo xisaabtan iyo xilgudasho u baahan waxaa lagu xeerin doonaa xukuumaddiisa halka ay u heli doonto xayndaabyada adag ee xusalada u dhigay madax horey loo soo xulay Mawlid Xaaji BBC London